beesha jareer weyne cadaalad darro tii ugu darnayd ayaa lagula kacayaa laakiin iyaguna markooda way kaceen way ishubeeyeen waxayna ku dhaarteen inay u daadanayaan madaxtooyada haddii horey loo gubay axmed dowlo lagu daray oo si markaasi cadaalad darro ah loo dilay jenaraal sheegow oo hogaamiyahooda ruuxiga u arkaan sidoo kalena shalay cali guudlaabe uu ku weeraray deegaano ka tirsan hirshabeelle waxay leeyihiin fadhi nooma yaallo waa in aan u daadanaa halka looga arrimayo waddanka qaar ka mida beeshaasi iyo dad ka tirsan beesha oo kacay oo hanjabaad culus diray ayaan eegaynaa sidoo kale inta u dhaxaysa magaalooyinka Mahadaay iyo Jowhar ee Shabeellaha Dhexe waxay ku soo bandhigeen hub iyo ciidan beeshaas iyada oo laga cilcilinayo cali guudlaabe oo ay leeyihiin waxaan ku qaadaynaa weerar baan bur iyo biyo ayaana loo kala baxaya suugaantooda ay caanka ku yihiin ayay soo bandhigeen sidoo kale waxay sheegeen xitaa kuwooda aan hubaysnayn baangado ulo iyo dhagxaan inay ku dagaalamayaan haddaba beeshan maxay tahay cadaalad darrada ay tirsanayso maxayse madaxda federaaliga ah markaasi u fiirin la'yihiin baaqa iyo sidoo kale dhaliisha ay u jeedinayaan beeshaasi oo dadka ay matalaan dabcan ay ka mid ka yihiin wararkeena kale waxaa ku jira muqdisho waxaa weli shirar culus ku leh mucaaradka waxay dhaliilayaan dowladda waxayna qorsheynayaan inkastoo garbo badan ay u kala jabeen oo ilaa 3 garab ay noqdeen waxay mar kale isku dayayaan in ay dib isugu soo laabtaan ayna rabaan in abaabulkii ugu dambeeyay ay sameeyaan dowladduna waxay wadaa hubka dhigis oo raggaasi inay hubka ka dhigto ay doonaysaa wararkii ugu dambeeyay ayaan eegaynaa marka hore soo dhawow muuqaalka like saar channelkana subscribe soo dheh waa mahadsan tahay daawada hagaag inta beesha jareer weyne warkeeda aynan u galin daawadayaal magaalada muqdisho waxaa ka socanayo abaabul ay wadaan xubnaha mucaaradka ah iyaga oo shirar ku leh hoteelo ay ku jiraan jaziira iyo hoteelo kale oo magaalada ku yaal waxayna ka shirayaan sidii magaalada muqdisho ay ugu dhici lahaayeen dibadbaxyadii khamiistii toddobaadkan baaqday mar kale ayay is abaabulayaan madalo hor leh ayayna ku ballamayaan waxayna qaarkood ku baaqeen in hubkooda dagaalka iyo sidoo kale beebayaashooda iyo askartoodaba ay soo wataan xoogna ku banaanbaxaan maadaama dowladdu ay diiday banaanbixii sharciga ahaa oo ay iyagu codsadeen oo wasaaradda amniga fasaxa ay ka dalbadeen waxay isku raaceen in dowladdu aysan raalli ka ahayn inay iyagu banaanbaxaan laakiin ay ku tusaan awoodooda inay yihiin dad nool karti leh oo banaanbixi kara shacab badan ayay abaabuleen laakiin way u suurageli weysay in shacabkaasi sidii la rabay ay noqdaan ugu dambeyn hadda iyaga ayaa go'aan iskooda ku gaaray in banaanbaxaasi sinaba uusan ku baaqan guriga hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cayshakuur warsame iyo hoyga muqdisho uu ka degan yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa kulamadii ugu badnaa laga karkarinaya dowladdu dhankeeda ma jiifto iyaduna waxay diyaarisay ciidan isugu jira booliis iyo military kuwaas oo la geeyay bar kontaroolada laga soo galo caasimadda iyo kuwa laga baxo iyo faris magaalaha intaba waxaana qorshuhu uu yahay in la xakameeyo dhaqdhaqaaqa iyo socodka labada dhinac ee gaadiidka iyo sidoo kale dadka shacabka ah sidoo kalena ay abaabusho dowladda ciidan si gaar ah uga hortago rabshadaha kuwaas oo la sheegay in 10 qof ee meel isugu timaadaba ay kala eriyaan dowladduna ay diidan tahay banaanbaxaasi halka ayaan uga baxaynaa sideebaad u aragtaa qaybta hoose faalada noogu reeb dhinaca kale beesha jareer weyne tabashadii ugu cuslayd ayay qabtaa iyaga oo tabasho ka ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaabe xuseen oo isku beela waxay beeshan ka cabanayaan in cadaalad darro horey loogu gubay nin ayagu ka tirsanaa oo gabadh markaasi la sheegay xaaskiisa ahayd oo u dhaxaysay in markaasi si cadaalad darro ah loogu gubay sanadii 2018 waa aan ku sabarnay bay yiraahdeen oo Axmed Dowlo si cadaalad darro ayaa loo gubay ugu dambeyn jenaraal sheegow oo halka janan ee aan qabnay ee Xasan Sheekh darajada gacantiisa ku siiyay ayaa xabsiga dhexdiisa lagu dilay bay yiraahdeen waa sida iyagu ay ku eedeynayaan madaxda dowladda ugu dambeyn waxaana lagu soo weeraray bay yiraahdeen magaalooyinkii aan deganayn oo Hirshabeelle madaxweynaha dowladana raalli buu ka yahay markan waxaan ku dagaalamaynaa bay yiraahdeen baangadaha miishaarta iyo dhagxaanta iyo ulaha aan haysano shirar jaraa'id ayay qabteen iyaga oo u hadlay afhayeena markaas sheegay inay ka soo jeedaan beesha shiidle ee jareer weyne dhaleecayn culus u jeediyay waxayna madaxda dowladdu ku tilmaameen inay yihiin kuwa qabyaaladiistayaal ah oo qabiil iyo qabyaalad ku gaamureen oo aan cadaalad ka shaqeynayn madax shacabkooda u simanna aysan ahayn waxaan rabaa inaan kula wadaago eedayntan culus ee beesha jareer weyne ay jeedisay iyaga oo waliba ku hanjabaya inay gacantooda cadaalad ku raadsanayaan muuqaalka like saar subscribe soo dheh channelka ila daawo ما أنا كم خالي وأنا الله صورني وأنا صورني عيد الناس عبد الدنيا على كاستي الجرك كاستي وأنا صورني ما أنا
من كاين جوكنا دير هاين جوكنا حبدي هذا صوت حبدي محمد هذا صوت وخسر ولا شيء قرد مشي ده وهذا شيء كنا ملها قبيلة إسكين hadda marka waxa dagaalamayo waa qabiilka Cali Guudlaaw iyo beeshina dagaalamay miya يريكنا دجالة مهلا مش يان كمريلي وحق سودولي علي قولنا مرشبالة حق سودولي تدولي وبرتو شنط الوحوغة مكينة شلو كاستي دجالك ما هاسكاي كذا لا نمسودش dagaalka maxaa sababa markii hore دجالك وحاصل جار أنا خلينا أسنين أنا سواء إن السبب لو فلو haye goorma ayuu dagaalku bilowday دجالك متواصل روحها كل متي كلك برينا مكينة على كاستي إن بيرتي لفنشة حق لو فنشة أزمامك وزوجامي عبد الله الله كانوا أزمامك حق وفرس تمع إذا قاعد يقول لا وبعدين adigu hadda halkee joogtaa حتى أنا مريرين جوا يعني mareerey soo maahan tuulada dagaalku uu ka socdo كسر نفس الكذا وياه waayahay adigu waxa kamid tahay nabadoonada deegaanka waxaan igu maqaalaa inaad nabadoonka beesha dagaalamaysa inaad tahay سيدا bal maxaa la isku haystaa halkee ayuu dagaalku ka bilowday ama idinka weerar qaad mise la soo weeraray مهر أنك مخالي وأنا الله صوّرني وأنا صوّرني عيد الناس عبد الدنيا على كاستي الجورك كاستي وأنا صوّرني ما أنك من كاين جوكنا دير هاي cabdibilayaasha madaxtooyada in lagu la dagaalamayo oo idinku soo duuleena maqaalan uga ah يا cabdibilayaasha madaxtooyada in idinku soo weeraraan maqalnay maxaa ka jira arrinkaas رنوة هلا عبد الدنيا كانت الولدي أنت كلامك هذا والد هاشتاي حب وزوجي سديد سغال تون أي هذا كاستين هذا يدير صعتاي waayahay maadaama idinka dadka deegaanka aad tihiin Cali Guudlaaw aan ciidan badan u wato sidee u wajihi kartaa marka مقعدني إنك خبر منين مجنونه إذا دولة ما قعدت هناك hay waxa Cali Guudlaaw in qayb idinka kamid ay taageersan tahay aan maqalnay maxaa ka jira arrinkaas يا qayb idinka kamid ah oo deegaanka degan inay Cali Guudlaaw taageersiinaa maqalnay ما خاينة معها من استاجرت هذا نقطة تدخل أنا وضعي أتاجر سمان أنا كأرتين نوع أفا كبدن مودني وحين نوع أفا كبدن مودني دولة دكومة آدني في شباب كومة آدني hay qasaaraha marka dagaalkaasi ka dhashay wax ma nagu sheegi kartaa قصار هذا ويلي بيا أو محمد أبو صعتة haye محمد هذا صعتة وخسر ولا شيء قرد مشي ده وهذا شيء كنا ملها waayahay maadaama deegaanka aad joogto nabadoonkii dadkii aad tahay la soo weeraray wax dhaawaca oo la idin keenay oo aad aragteen مايا واحد هذا حكاينا الله يكفيني هذا مجرانا والسكم مغيني haye maxaa idin qorshaa marka ونقع ha وحالة قرشنا إنه أنبقوا لمانا إنه دحجوغنا أو وطقين دحجوغنا أنبقوا لمانا وحنا هيني يدان وين قلت بس نسوق المتويني ورنما كان محاقوان تعذير جويلة كعيدنا تاي مدحوينة تاي أو بالديهيني أو بعد بمساكين تلبابينايو أنسك لمانا ونقع dawladda federaalka iyo madaxda dawladda baaq nuucay ayaa u direysaan باقو حان قدرا وحان إني كسو قارتو وخاين نولا دافو ساسا أو باقا خاين نولا دافو من شخصي أو بير شيغنايو أو بير تانا اللي هايو أو صدف الزيتي جيرم قبس أو بعد كهيد سجيرم أو شوك لو فلايو معمول كان هرسبالي وحان قدرا باق وحان دولة قدرا وحان إني وحكا عرفو وخفيريسو hirshabeelle darajo nuucay ayuu ka hayaa ama xil nuucay ayuu ka hayaa وحبك معها ma ninaan mas-uul ahayn ayuu Cali Guudlaaw dhashiikayaasha usoo kiciyo idinku soo weeraray مسؤول معها نكا مسؤول معها كتاتوب الوشي مسؤول معها haye maxaa keena marka in Cali Guudlaaw dhashiikayaashiisa idinku soo weeraray maxaa keenay قبيلة إسكين hadda marka waxa dagaalamayo waa qabiilka Cali Guudlaaw iyo beeshina dagaalamay miya يريكنا دجالة مهلا مش